دكتور أبي واسيله يسوي هذا الكودي دكتور أبي إنه إحره ويعني وحفي عم بي أحد أنا كدل البضي ما إلا إحره ها وده مرق يسوي مدوني نبويري ومرنا بما أنو ربين إنه إحره لكن أنا كو قصبي أو إيدي حلمي مرق ما أوامرتي سيبان كهور مدبويري سمعنا markaan awaamirtii iyo qorshayaashii iyo hawlihii uu watay oo marka ay fiicneed inaan fahmo dan iyo maslaxana iigu jirtay in la xiro marka maxaan faa'iiday buu leeyahay waxaan faa'iiday buu kuleeyahay waxaan ogaaday Dr. Abi inuu yahay qof Ilaahay soo diray awliye Ilaahay habeenkii duula ahad ka fiican uu san dalkan soo marin soona mari doonin ee waa in mucaaradku ay Itoobiyaanimada sida xabad kiniiniya ay biyala'aan ugu liqaan ayaan taagnahay mar kale waxaan leeyahay waxaan ahay Ethiopian qalaylkan ku liqay Ethiopianimada idinkuna waa inaad qalaylka ku liqdaan waa dastuurka iyo dawladnimada Ethiopia iyo jacaylka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waa inaad duuduub u liqdaan Abdiilay waa qof mucjiza hadduu asoo banaanka jooga uu amaanay Abiy kuwa xeelka hay haddii Abiy wax ka qaataan ama ay amaanaan isagu u amaanayo bini aadan u amaani kara ma jiraan مصطفى ما معنا المياه مصطفى ده مركي ملها وليس شو أنت بدن آد ومفوجات لكن كلمة هو أقون سيء هيبة يعني إثيوبيا بقى يعني إنه سيء إلهي سيء وكيلك إلهي إثيوبيا يعني سكل هديب الله رجع وحبة جارسية بقى هير إله النمو وخرج يوحدن بي وقال كرانة مشي لو دور سيء هيبة كله حل بلور ديبي مي شو ما هي مياه مي كم يعني حقرصون مويانه حي هند بقيدا يدارهن يغريهن maxaan ku yiraahdaa aan dhisnay iyo mashaariicdan soo kuwan ma abuur mashaariic aanu ku hirgelinay lacag dema ka yeelinaa anagu inta weeyaan leeyahay ummada dhan baa baaba'ay dad iyo dunyaba reer dhan baa baaba'ay caawa qoys ka nooleen waxba ka jirin oo maamulkaasi uu maxaan ku damka fiiri ma wax qarbo xilin jaamco abdi dadka wuuna dilay ولا نورين إلهي بقى إحنا نورين يعني وحنا نور أفر فيري وحنا بقول قف دمين بقى هاي وحلال هيا بقول قف وحنا دمين وحلال هيا ده بقول قف بقى هاي تمن يدور مليون بقى كنا الماشى حريها قحطي لوبي إلى أي حد يسسنيهن أو يسندب يقول نقول كن جيوه دي يريره دي أجياد ماذا أن تشايل هوسبيتال وإسبيتال عسرية أجب عالمية هي أذيك فن dhaqaatiir abaabulan aqoontooda la hubo ayaa kuugu diyaaraha care we serve and we support welcome to Ajiad Mother and Child Hospital. We focus on comfort, respect and quality patient care in every step all the way. Your health is our priority. Welcome all. Umlisaal fiican oo heer sare joogan gynecologist joogan ilmaha waa lagu talaalaa waa lagu gudaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Ajiad wuxuu ku yaala xaafadda Isli gaar ahaan Jojabi wuxuuna ku dhagan yahay iskuulka sare ee gabdhaha ee Don Bosco waxay faahfaahinayaan la xiriir telefoonada shaashada ka muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة ديالكم سدوا هذا برنامج قيبتن أنت وصعدها دو إيبو وقلنا وحن كفر القاين دونا مدحونها دلوقتي ديان كالصومالي مصطفى محمد عمر أيها كجوابي ضها معارض كيوليبا قرال وصاصري مدحويني هوري ديان كالصومالي عبد محمود عمر عبد إيلي waxaa mudooyinka la soo dhaafay la arkayay odayaal deegaan ka soo jeeda kuwaasi oo madaxweyne Mustafa iyo maamulkiisa ku dhaliilayay wax qabad la'aan iyada oo ay isaga kala goosheen caasimadaha Ethiopia ee Addis Ababa iyo waliba Nairobi qoraalka Cabdi Maxamed Cumar waxa uu qayb ka ahaa dhaliilaha loo jeedinayo deegaanka Soomaalida isla markaana Cabdi uu qayb ka mid ah uu waxa weeye uu kaga jawaabayay eedaha loo jeedinayo bal arrimahaas baan eegi doonaa iyo qaabka uu socdo iyo jawaabta madaxweyne Mustafa iyo qaabka uu u dhigay saaxiibka jaamac dhinaca fadhiya isagana wax ka weydiin doonaa jaamac ku soo dhaweynaya waad maalmahan waxa socota in la xogaa la sir barbar dhigayaba maamulkii hore Cabdiile iyo maamulka madaxweyne Mustafa bal soo dhaw Cabdina waa kii warqada soo saaray بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودهان بمركة كوات مدة سوماليات ميل كستو أي جوجان سلام الله عليكم بالله قارهان قولي هذا يساستين كهالين إن أرتمركا سيدبا اللغة هالليود حالة ديان كالسومالي ده عندنا حكومة السيكنة ديان كالسومالي دو ما هذي ديان سووا يعني حرقة أو إن
aayihiisa ka tashaday oo dowladnimadiisa iyo nidaamkiisa iyo yani shuruucdiisa u madax bannaan ma aha waa maamul goboleed ka tirsan wax la yiraahdo Ethiopia oo yani uu qayb ka yahay yani dhib iyo dheef wuxuu doonaba ha ku qabe waxa hadda is eryanaya ee ugu muhiimsanay waa madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda jooga iyo يعني كوحة كلا تاجرسن أو يعني برها برشيد يملها اسكو بعسانية إن ماشى واحد يلنا مركز سيدا بالوضع هذا وهذا لجوء جودة شراء أو يعني إثيوبيا أو طبعا كسعودة واحد لجوء شيء دورة شو ويعني لليه هو داعس أنا وقبسوه مثال لليه وأنا أركه حريته يعني يدل لليه مع المكلا وحلا قدري يعني أما وحمد كردين لو سميه حلقي إسديوان قلنته مرشحين ما قلنا واحد وشرحين الترشح وشرحين يا حلوان واحد وانا ضمية أو ضد كاس وليه هو لو كردي واحد شرت مركه حمد داسة شرت حمد داسي يو يعني كليل كأرمهن كذا شيء يا لسقطوا براعية وليه معارض كها أي دون ينقلبا إن أي كحمية ماشينا متشوجان وصاحد يدت شوجا معها وضد كسر ليه حتورة يا بنان ورف لتاجم بنان شوابت مدحوين مصطفى وين دوناي عبد القرآن لا بوصل صاري عبديلي مدحويني وراء عبديلي عبدي مالمهن بهرتا وكوتشري maxaan ku raahdaa saaxada oo toddobaadii ugu dambeeyay qoraal kala duwan buu dabcan soo qoray saan filayo kan ugu dambeeyay dabcan waxa soo jiray kuwa ka horeeyay dad badan baa marka waxay ku dhaleeleen abdi ha oo ay ku sheegeen inuu yaani maanta qoladii xidhay ee oromadii xidhay inuu u yahay daba dhilif oo u daba socdo oo yaani de nimankii ku xidhay intaas aad u xidhnayd dhibaatada ku geystay adoo madaxweynaha inta ku dafay gudaha ku dhigay yaa daba dhilifta wax macno oo had leedahay ma ay jiraan amal oo dad garasho iyo aqli leedahay nimankii dhibaatada ku geystay ku xidhay adoo madaxweynaha maanta ma aadan daba joogteen jawaabo uusan ku farxin iyo dabcan helay halkaas marka mar kale jawaab ka soo qoray wuxuu yiri marka waxa leeyahay de horta marka koobaade oromada ama in Dr. Abi wasila uu soo hadalka u dhigay Dr. Abi inuu xiro waa yaani wax fiican bay ahayd anaana ka dalbaday ma ila xiro ha oo de mar isagu ma doonaynin buu yiri oo marnaba ma aanu rabin inuu xiro laakiin ana ku qasbay oo ila xilmiya marka ma awaamirtiisi baan ka horimid buu yiri Soomaaliya markaan awaamirtii iyo qorshayaashii iyo hawlihii uu watay oo marka ay fiicneed inaan fahmo meesha yaani sida aan maanta wax u fahansanahay inaan fahmo oo aan xilliga wax garto yahay haboonid waan garan waayay buu marka kadibna saafti baa ay qaaday buu dan iyo maslaxana iigu jirtay in la xiro marka maxaan faa'iiday buu leeyahay waxaan faa'iiday buu kuleeyahay de waxaan ogaaday Dr. Abi inuu yahay qof Ilaahay soo diray awliye Ilaahay habeenkii duula ahad ka fiican uu san dalkan soo marin soona mari doonin inuu isagu yahay yaani bilow iyo dhamaad qofka maxaan ku idhaahdaa dalkan ugu wanaagsan uguna maxaan ku idhaahdaa cadaaladsan uguna sharafta badan inuu yahay يا سو أقعدي بقول ورنتي رنتي هذه هاي أنت هذا اللي هو هذا يشيء مبهدل عليه هاي ده ها حوس كبد المياه ما كحمين بلي هذا ترى كلام كحمين يا مرك إثيوبيا يعني ماذا بقول أما أورما ماذا أما إثيوبيا ماذا الذي هو دبس صعدها ما دبس صعدها وان هرس صعدها بقول وان هرير صعدها وأنا إثيوبيان إلهي بقى إثيوبيان يعني أفكي أن هذا كور كإلي بيجي waxaan nahay Ethiopian waa in mucaaradku ay Ethiopianimada sida xabad kiniiniya ay biyalaan ugu liqaan ayaan taagnahay mar kale waxaan leeyahay waxaan nahay Ethiopian qalaylkan ku liqay Ethiopianimada idinkuna waa inaad qalaylka ku liqdaan waa dastuurka iyo dawladnimada Ethiopia iyo jacaylka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waa inaad duuduub u liqdaan oo idinka dhex ciyaaro raja uu leeyahay ma rajo qaba marka inuu kursi صدمت wuxuu dooni baa qabe hadalka uu sii watay waxa uu qoliyaha wax iga sheegay yaani maarta eedaynaya
وقول يوم مركي أن كهذا اللي حقيقة وحيابها جرا يعني دونية إن أي أنا ما أعرف لقطة نقوم مرتان وهذا كتيرة العموم وحن كنت المام كرابول وحوض إنه يهدور السياسة ده دور السياسة ها دور السياسة كده دور سنية هاي سياسة كبر يتمي يعني أنا واحد كلا حين واد ويعني يدور سنة وحيدور سنة يوم بكل أبي أحمد علي ونك يسوي أمانة قدامي هذا قرنا وحكوت المام إنه يهدي يعني وحون إلهي يتوب عمل عبدي لي وقف من جزاء عبدو أصاب بناك تشوج وأمانة يا أبي كو حيلك هاي هذا أبي وحكي قاتنا ما أمانان سووا أمانة يو بني آدم وأمانة كرم تجيران مصطفى ما أمانة مياه ما مصطفى ده مركي ملها وليس شو أمه أنت بدن آد ومفوق آد لكن كلمة هو وأقون سيء هيبة يعني إثيوبيا بقى يعني إنه سيء إلهي سيء وكيلك إلهي إثيوبيا يعني سكلا هديب الله ديجا وحوبة جارسية بقى هير إله النمو أبي يو جارسية بها قرآن الله وحتى كور سو قرآن وهدي أنا أبي أهين دل كلمة ما بتشرين بكلية واحد بيلي هذا ما بتشرتين marka waa jiritaanka Itoobiya isaga sabab u ah isaga ayaa maaragtay ay ku timid yani ahaanshihiisa waa badbaadiyaha Itoobiya waa milkiilaha Itoobiya waa ninka iskale Itoobiya yani waa qof wax khalad iyo wax dambi oo u gali karaan ma jiro waa dhowrsan yahay buu ku leeyahay maxay baa loo dhiibay may shaqamaay miya may kuma ogaan ku xaqrasoon mooyaane oka qoraalkiisa dhameysay qoraalkiisa waa dhameeyay waa tahay de inta kulli markuu soo yiri abina waa amaanay deegaanka Soomaalida iyo madaxweyne Mustafa maamulkiina dawaa dhaliilay oo aan qoraalkaas ma akhrin laakiin dadka ka hadlay waxay lahaayeen xitaa mashaariic deegaanka ka socda wuxuu yiri waa kuwa laga taasi tu hore ahayd taasi tu hore ka dambeeyay kana waa ka dambeeyay uu leeyahay waxaan ku abi qoraalada degdeg ah dowrsadayaal siyaasadeed baan u arkaa uu leeyahay dowrsada siyaasadeed waa madaxweyne Mustafa marka dawladdu maxay kaga jawaabeen aadaha isna wuxuu kaga jawaabay waa shaxaad siyaasadeed kale waa dowrsi siyaasadeed soo ma dhihin buu kuwa shaxaadka siyaasadeed ku jira oo hadda yani doonaya inay siyaasadda shaxaadaan shaxaad ku soo galaan isna kaga jawaabay oo dad badan buu isku baal qaaday laakiin de kulli de waxa uu jeedo waa kooxdan Abdiilay yani dawladana waxaad moodaa xogaa dulqaadkeedu inuu yar yahay oo yani iyo dawladii ha sabirka ku yar dadkan dhawaaqayaba inay maxaan ku ilaahdaa u jawaabto ama ay ka bixiso maxaan ku ilaahdaa yani falcelin ma ina hayna hadii ay wax qabatayna wax qabadkeeda di waa la arkaa ومانتو وحبان قبناي يا مايدان قبن يا وا قبناي يا وا كان waxaan wuxuu ku leeyahay yani waxaan qabanay miisaaniyadana daba soo wardadku shaqo kale ma hayaan dadka bila amal weey dadku waxa weey boolad hadaan qaadan iyo hadad wax meesha yaalo dhan qaadato waa isugu mid mar walba waa tuug baa lagu leeyahay waa qaa'im baa lagu leeyahay wixii uu dhacay baa lagu leeyahay Dubai buu daara ka dhistay baa leeyahay New York buu aqal ka gatay baa lagu dhihi Nairobi kala bar buu iibsaday baa lagu dhihi yani waxaasi waxa weeye waa shaqada Soomaalida iyo caadadeeda waa inuu marka la tiirsado ama uu jawaab ka bixiyo mayna ahayn hadii waxa ku haboonayd kaliya inuu yiraahdo fagaarayaasha iskeena oo uu saaxada furo siyaasadda ama baratanka oo halka maxaan ku raahdaa inta lagu kala baxo laakiin madaxweynuhu taama yeelahay dood buu la soo istaagaya iyo waxaan wax iska celin hadii waxay sheegayaan hadii dadka muxuu ahaa aan laga jawaabin oo aan la dhihin waxaas waxba kama jiro dawladda isdifaac ma ku qancayaan soo loo malayn maayo maya kama malayn ma ku qancay qofka mucaaradka waa la yaqaan fiiri anigu hadaan rabo inaan qancin oo maanta dhan isku dayda inaad qanciso oo maanta dhan ku leeyahay tuug baa tahay qaa'im baa tahay adiguna aad war tuug meeyahay wixii waa kana may ana ku tuug baan baan ku leeyahay waxaad sheegayso ana ogina tuug yani mucaarad ma qancaan si dhaw marka looga hadlayo waxa kaliya ee shacabka yani ay doonayaan baa waxay tahay waa la is eedeeyay soo ma aha wixii macquul ee jawaab u baahan ee cayiman ee tusaale ahaan meel hebla mashruuceedii xagee ka baxay oo kala ah oo yani la isweydiin karo taa jawaab waa looga baahan yahay dawladdu inay ka hadasho laakiin si guud lacag baad dhacdeen tuugaa tihiin kan baad tihiin marka la dhaho maxaa dhibaho jira waa shaqadii ay dadkani hayeen camal kalaba ma lahaba marka waa ka jawaabaya
wallaahi bilaahi kuwa waxba isku ogyihiin baa leeyahay waata muhiimaddu marka waxay tahay dawladdu ficil ahaan inay uga jawaabtay ee qowl ahaan aysan uga jawaabin yani doodaha iyo aragtiyaha mucaarad markii fagaarayaal la isugu yimaado tusaale ahaan goobo ku habboon oo mucaaradkuna waxooda ay soo diyaarsadeen dawladduna ay waxeeda soo diyaarsatay wax la fahmi karo oo meel laga bilaabo iyo meel uu ku dhamaado marka laga doodayo waa goonideeda laakiin tanaago iyo wax Facebook lagu soo qoray yani madaxweynuhu wuxuu ku leeyahay hadda ka hor baa waxa dhacay buu yiri tusaalayaal buu soo qaatay Allah u naxariistay sooraan ya wuxuu yiri soo gudoomiye ah laptop wata yu is ogaabu xilkii baa laga qaaday marka gudoomiyaha ah ee de xilka uu hayay meel badan baa u furnaa oo u gali jiray markii xilkii laga qaaday wuxuu ismooday wali inuu leeyahay maxaan ku iraahdaa title-kii iyo yani xasaanadii ama iska galidii uu meelaha ku gali jiray awood uu ku gali jiray boorsadii uu soo qaatay isagoo oo xuubinayo meel wasaarad ahaan soo istaagay qoladii waa garteen waa ninkii xilka laga qaaday wab baleniyo waase maalintii bulada may baleniyo ma galaysid meesha oo la isku buuqay markii dambe say u diidaysan meesha soo waxaan wad wariya laptop ma ahbay maxay yihiin laptop-yadan sababta la igu diidayo maxay yihiin anoo yani laptop wata ha de laptop baaban wataaba ma garataan inaan ahay nin mas'uul دهايا أدبهات لكن لقى قاضي مسؤولية دي هذا اسمه مسؤول هذا لابتوب كاننا حل يتايتل يعني كوفة صحية إن ماشي لوبا هذا ماشي لوبا هتبع أسكجشوا معها مركا قريهم بيجي إن معارض كا إله بيجي محل قبتي بيجي دارها صومها بيجي وحكون كل اسم ميزانية حيه هند بقية دارها يقوليها محن كويل هذا يتو عن اسم مشاريع ده سو كون ما بيجي مشاريع إنه كويل قلنا العد دما كيلينا نو انت وين لا مركز اليقين للقرآن الكريم وعلومه مراكزته كلام مدن مركز اليقين معناها بكجرو ومدن لما هذا شيء وميش ربتين مدود السويسين مولا يدن كسمة ما شاء الله لها مركز اليقين ونيروبي كويا لو حب الشدة وجيسينيا إنه أسكر قيب أونلاينها والله برت حفظنا القرآن الكريم كه هنقاد عربي الصومالية كسحيد عربك تفسير القرآن الكريم كه دعوينك أحاديثته يموتونتي كلا سيدا فقيقة وعيفا فاهنين تاسيدير كلا حرير نبرد شاشة كم مغضى يعني معارضة دا إن عادي إيه إسكال قلنا كالا إلى مرنت سومالي دو أي عنك كتهاي يعني هجامينتو مسؤولية ده يعني قيب كما إن أي غنعسو waata madaxweyne Mustafa intuu yimaade deegaanka waxa aad ugu soo qulqulaa waxa weeye hay'ada iyo safiirada kan aadka wada gaalada cadaanka iyo aad ugu soo qulqulaa oo madaxweynuhu in badan oo jijje kula kulmaa marka mar uu qolada ka hadlay wuxuu yiri deegaanka lagu soo qulqulayaayo dad afki yaqaan ya la hadla soo abdi u jawaabeen wuxuu yiri luqad jaban oo aan diblomaasiyiinta iyo hay'adaha aan lagu hadli karin ee meesha la fadhideen buuri marka bal soo dhaw iyadu say tahay dama horta xilligii yani maamulkii hore iyo xilligan wax la iska rab dhigi karo ama wax la isku soo qaban karo aniga iima aha maamulkii hore yani si guud koox dad qarata ah ya meesha joogtay waxa kaliya ee maamuladu yani ay maamul ku ahaadaan dhibaatada ay geystaan iyo xumaanta ay falaan iyo tacadiga ay geystaan iyo xadgudubka iyo xasuuqyada ay sameeyaan iyo maamul ku ahaayeen wana waxa kaliya ee maxaan ku yiraahdaa deegaanka Soomaaliyeed xilliga ka jiray markaas dib looga hadlay way jireen yani waxyaabo la qabtay oo hawluhu isgarab socon laakiin de waxa isu dhigmi kara mayna ahayn yani wixii la qabtay iyo wixii la haleynayay oo ummada dhan baa baaba'ay dad iyo dunyaba reer dhan baa baaba'ay caawa qoys ka nooleen waxba ka jirin oo maamulkaasi uu maxaan ku dam ka sii tabcan yani waana masiibay ahay kuwan hadda jooga yani isbedel guud oo Itoobiya oo dhan ka dhacay ha ahaado qayb ha ka ahaato laakiin de kooxdani hadda joogtahay wax badan iyaga sabab u ah iyagu waxyaabaha hadda la isku dhaliilayo ee la isku eriyanayo ama loo jeedo waa kursiga
ahmiyadda ama waxa ugu badan ee meesha yaala waa nimanka kursiga la rabta in laga rito iyaguna kursiga difaacanayaan laakiin maanta yani dad la dilayo dad maxaan ku magaalooyin xabsiyo ah oo iyo waxa qofkii soo gala iyo ka joogaba ay wada maxaabiis yihiin maanta deegaanka Soomaalida inay iska jirin baan filayaa oo anu hadda ma tagin Soomaalida fahmay laakiin de dushan baan kala soconaa wax badan waa ognahay in dhibaatadii yani jirtay ee dilka iyo dhaca iyo boobka iyo xirayga iyo xadgudubyada joogtada ahayd ee dadka maxaan ku qabalada lagu eriyan jiray habeen barkii loo daadan jiray yani meesha ma taalo maxaa ku soo haray tan kale yani luqadaha iyo deegaankii wax maanta jigjiga waxay noqotay markii si dhaba loo hadlayo yani rabbi baa inaan maamulka ma taageersan hadana kamidi Soomaalida fahmin laakiin waxa indhahanaga aan ku aragno yani ma noqon karno xaqiirin ma noqon karno waxaan arkaynaa jigjiga oo maanta magaalada koobaad ee dhulka Soomaaliyeed ah magaalada ugu qurux badan noqotay oo يعني مالا كاميرون كلا قرية واجران سماه قرية مقالك استطع ولا لا ها وحنو أركينا يعني ضدكي صومالي ومقالة مال قشانية هدي أن أمني يحسلوني أنا يشيرنا يعني تاني ما يسأماتين ورون معمول كل دليل بدن بوليه هاي قلنا أون لفتة وكي هالو ما يهالدان راعي كردجاي aragtida siyaasiyiinta kaga soo horjeeda maxaan ku idhaahdaa ito culaysyo iyo cadaadisyo badan baa la saaraa qaar kamid ah odayaasha dhaqanku ayaga soo cararay ee hadda meeshan jooga oo dhaliisha la taagan oo isaguna madaxweynuhu ka hadlayo yiri inta qol mugdi ah isku soo xidhaan igu aamina oo maxaan ku igu rumaysta garkayga iyo koofiyadayda waxaan sheegayay inay ruuyihiin ma yani dhaliilo way jiraan laakiin heer hadda yani maxaan ku idhaahdaa wixii hore lagu barbar dhigi karo ma ay jiraan maanta yani ololahan door cadaalad ma tahay in la barbar dhigo maamulkii hore maamulka ma cadaalad ma aha marka ilaahay laga cadaalad daha waa dadka kursiga rab fiiri ma wax qaar waxay leeyihiin jaamaco abdi dadka wuuna dilayay wuuna nooleeyay ilaahay baa wax nooleeyay yani waxaan afar fiiri waxaan boqol qof dhammayn baa ahaayeen oo xilal haya boqol qof waxaan dhamay oo xilal haya dadku boqol qof bay ahaayeen 10 iyo dhowr milyan baa ku nool meesha xiriyaha qaxootiga dhoobay ilaa iyo hadda aysan yihiin oo aysan dib ugu noqon karin guryahoodii iyo reerahoodii waa tahay Soomaaliga maamulka waxa sameeyay maamul asagu ka hadla maamul xumo iyo cadaalad iyo ka hadlo كارورا فيو تاورز وعجيب العجيب يا دنيا عمرا ومقال عصري هوا عالم كيو ميل كويدل كارورا فيو تاورز كارورا فيو تاورز waa mashruuc dhisme oo aad u ballaaran kaasi oo ka kooban laba dabaq wuxuuna leeyahay guryaha iskorsaarka iyo waliba guryaha caadiga ah oo nooc walba leh fursadaha aad ka heli Karura View Towers waxa kamid ah xarumihii ganacsiga sida dukaamada xafiisyadii baakinada gawaarida ilaa 6 wiish oo high speed ah goobihii jimicsiga goobihii ciyaarta goobihii orodka hoolkii shirarka goobihii kafeega iyo waliba supermarket Karura View Towers wuxuu ku yaalaa wadada Ring Road ee xaafadda Bakan wuxuuna haystaa view aad u qurux badan oo ah Karura Forest wuxuu u dhow yahay isbitaalada caafimaadka sida MB Shah Aga Khan iyo moolkii dukaamaysiga sida Westgate Mall iyo Sari Center waxay faahfaahina eeg shaashada Karura View Towers xuuga hadli way wali guri baa haye soo hagaagsan buu rabaa inuu soo noqdo maniga adada reer dhab damsi ha hay fiiri markii hore iyo hadda waa kala labo yani abdi wad jeedaa soo maaha isaga inoo sheegay markii hore waa khaldanaa buu yiri aniga in la xidho oo dib maxaan ku idhaahdaa to la isu update gareeyo oo ano maxaan ku idhaahdaa to yani qof kale aan soo noqdo bini aadan caadi ah waa ku faraxsanahay buu taasna Dr. Abiy baa ka dambeeyay buu yiri anaana kasbaday yani hadda isaga oo qof kale waana suuragal hadda ogow inuu soo noqdo suuragal laakiin hadduu soo noqdo sidoo hore ma ahaan dada kale systemka xilliga jiray يعني نوع أها إما أها واحد بدي كجارها فيري لكن نبكي ديانا كل وقت كانوا قبضنا يسموه إنه مرول با دت كانوا نبكي أبوي قباندي دت كنا حوق بالو هايستا ما هدت كويتو بيان بنت خيالي جم حكوا لهذا سياسيين تحل كربتا مستفيد عبدي أي كم يديهن يتوبيان بان هيدا حبك كم تيران حبك كم تيران دت كان حوق بالو هايستا ودل الدون صلوا ودل الجميستو ودل عن يجو أركت أج waxa kaliya kugu filan baa waxay tahay deegaanka Soomaalida deegaanada kale iyaga isdoorta
madaxweynahooda doorta dad baa tartama deegaanka Soomaaliya ma tartamo laba tartamo hal qof baa la yiraahdaa guddiga fulinta soo saaray kaasa madaxweynaha laga dhigaa aqligiisuna ku shaqeeya dastuurka iyo nidaamka yani laguma shaqeeyo deegaankani marka ma aha deegaan isagu aayihiisa iyo yani xaq iyo xuquuqda ay dadka kale waxa Itoobiya lagu sheegay ay leeyihiin leh ma aha yaa maanta doorasho dhacaysa leeyahay yaa tartamay isweydii adi yaa tartamay de mucaaradku waa joogan hadee waa kuwa yaa kamida Ibrahim Dheere meel walba ma joogaa deegaanku ma ka sharaxay ma ka sharaxay in xawa ma aha deegaanku ma ka sharaxay maalinkan bartay doorasho u taagnaa malahayga yaa wax noocaas ee ahayd ilaa adigu 2010kii mar waa kii Cabdiin iska soo caydiyay wanin waxa weeye libaaxa weeye waa uu hadlayaa mooyaane wax saameeyna iyo wax awooda iyo wax aragtay ma qalbi dhagaxna maxaa xagu ka sharaxay isna de meeshii uga soo jeeday xagee ndolo waa BB Soma meeon la buuta wala tee ka sharaxay wala Mustafa weydii meesha ku dambeeyay fiiri meesha kursiga eeg adiga iyo maxaan ku koox ku taageersan oo magac kale ama naanays kale aad siisay wax macna amsi kurniyo meesha wax yaala anagu waa naqaanaa Itoobiya la yiraahdaa deegaanka Soomaaliduna meelaha ugu sii liitu qayb ka yahay kursiga un baa la isku haystaa kursigana kolba ka jooga ilaa ay qolada keenta ee marka hore ogolaanshaheeda uu ku yimaado ay maxaan ku fiishta kala baxaan isaga ka atoora ah soo doonu ka yeelaya meeshu doono fartu doono ka qoraya si fiican ciidanka isaga iskale maxaan ku raahdaa dawladda isaga iskale qoladii ilaahay wax uga soo qaado markayna madaxweynaha uu la xisaabtamayo miyaarad baarlamaan doodaya miyaarad yani dadka Itoobiyaanada kale waxa la yiraahdo yani baarlamaanadoodu way doodaan waxbay keenaan Abiy Ahmed dhowr goor buu isku dayay inuu madaxweynayaal ka qaado meesha inta hadda inaga madaxweyne Mustafa meesha joogo madaxweynihii toddobaad baa deegaanka Axmaarada yuu leeyahay baan filayaa miyaa mise waa kii aduu dhowr mid baa la jiraan ma qaar waa la dilay qaar maxaan ku raahdaa waa la cayriyay kuwa Abiy baa ka soo qaatay saddex afar waa ila waa ka toddoba aduu markay ugu yaraadaan waa 5 iyo 6 سماذا فهم يعني ودد انت بدن iyagu dareenkooda iyo rabitaankooda ku shaqeeyay baarlamaankooda uu xoriyay baarlamaankan ay dad soo doorteen baarlamaanka inaga waxa weeye wala geeyaa meesha dadka la dooranayo way qoran yihiin qof aan qornayn oo aan 6 bilood ka hor la sii qorin xildhibaan baarlamaan ma noqonayo madaxweyne aan hal sano ka hor la ansixinina madaxweyne ma noqon marka Mustafa hadda ma noqon doona madaxweyne mise ma noqon doona Allahu yaclam laakiin hadda cid dhaanta isaga anu ma arkaba isaga iska dayan la iska xiraado iska baashaalo intii mid kale oo inkaaran oo isaga ka fog imaan laha isagu hadda cidna dib badan kuma hayo dibkiisu waa kursiga u daayay kursiga la jecel yaa هاي دad kan inuu deyn maahan waa ka daba qeyliyaan waa ka xanaajinayaan isaga dulqaad badan ma laha madaxweynaha waxaan leeyahay war dulqaado waa laga daba qeyliyo ma aha albaabka lagu soo istaagaya dadkana waxa weeye dadku xor ha noqdaan oo odayaashan iyo waxan aad u jawaabayso hawl ku taalama ah hawlaha kale ee ku yaala ka shaqee dadkan waxa weeye group ka aad leedahay ku aamin isagu cidna kuma aaminayo waxa waa isaga mikrofoonka u qabsanay dood ma santahay waa daawadayaal qodobkana intaas aan ku soo gabagabaynaa tan ee kulan dambe nabadgeliyo